kulan wacan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo booqashadiisuna ay ku soo aadaysay xilli maamulka Hirshabelle uu ku jiro diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashooyinka qof iyo codka ah ee la qorsheenayo in ay ka dhacaan 20ka Juun madaxweynaha ayaa lagu wadaa in uu ku sugnaado Jowhar in uu kulamo wada tashi ah la yeesho hogaamiyaasha bulshada waxgaradka shacabka deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle kulamadan ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka amniga horumarinta adeegyada bulshada iyo xoojinta maamulka deegaanka doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Hirshabelle ayaa lagu dooran doonaa golayaasha deegaanka iyo xubnaha matalaya shacabka waxaana maamulkii dowladda federaalku ay ku tilmaameen tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo dowladnimada matalada shacabka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu kormeero xaaladda guud ee deegaanada Hirshabelle isla markaana xariga uu ka jiro mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay magaalada Jowhar mashaariicdaasi ayaa isugu jira kaabayaasha dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo dib u dhiska xarumaha muhiimka ah ee dowladda dhanka kale amniga magaalada Jowhar ayaa si weyn loo adkeeyay ka hor imaanshaha madaxweynaha iyadoo ciidamada ammaanka ay kordhiyeen howlgallada lagu sugayo nabadgelyada magaalada iyo goobaha uu booqan doono booqashadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysay xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto hirgelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee la qorsheenayo in ay ka dhacaan Hirshabelle Galmudug iyo deegaano kale kuwaas oo dowladdu u aragto tiir muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyadda dalka hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka hogaaminta maamulka kadib munaasabad xil wareejin ah oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo munaasabada ayaa lagu wareejiyay mas'uuliyadda maamulka iyadoo hogaamiyihii ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi uu xilka ku wareejiyay Aadan Maxamed Nuur oo maalin ka hor loo doortay hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi kadib xil wareejinta Aadan Madoobe ayaa uga mahad celiyay hogaamkii ku meel gaarka ahaa iyo golihii wasiirada shaqadii ay qabteen muddadii kala guurka isagoo sheegay in ay hufan uga soo bixeen waajibkii saarnaa xilli maamulku uu ku jiray marxalad xasaasi ah waxaa maanta si rasmi ah xilka uga la wareegay hogaamiyihii ku meel gaarka ahaa ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan uga mahad celinayaa dadaalkii iyo shaqadii wanaagsaneed ee uu qabtay muddadii uu xilka hayay Aadan Madoobe ayaa sheegay inuu si buuxda uga warqabo xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed isagoo tilmaamay in mudnaanta maamulka cusub ay noqon doonto dib u heshiisiinta bulshada sugidda amniga xoojinta wadajirka shacabka iyo dhismaha maamul midaysan oo shacabka iyo dowladda isku xira hogaamiyaha cusub ayaa sidoo kale fariin u diray siyaasiyiin uu sheegay in ay hore uga soo shaqeeyeen maamulka Koonfur Galbeed isagoo ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo horumarka deegaanada ay ka soo jeedaan kana fogaadaan wax kasta oo horseedi kara kala fogaanshaha iyo shacabka iyo sidoo kale wax u dhibi kara amniga deegaanada dhankiisa hogaamiyihii ku meel gaarka ahaa ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa uga mahad celiyay shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan bulshada Baydhabo taageeradii iyo wada shaqeyntii ay u muujiyeen muddadii uu xilka hayay waxa uu si gaar uga mahad celiyay odayaasha dhaqanka culimada haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada ciidamada amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo sheegay inay door weyn ka qaateen ilaalinta xasiloonida iyo hirgelinta howlaha maamulka Jibriil ayaa sheegay muddadii uu xilka hayay inuu diiradda saaray diyaarinta iyo qabsoomida doorashooyinka qof iyo codka ka dhacay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaal badan uu ku bixiyay ugu dambeynna maanta uu ku guuleystay meesha ay Koonfur Galbeed taagan tahay Jubbaland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay si sharci darro ah ula wareegtay ama u leexsatay shixnad qalab kalluumaysi oo sida la sheegay lagu talagalay in loo qaybiyo dowlad goboleedyada dalka wasiirka kalluumaysiga Jubbaland oo shir jirayd ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in qalabkaasi aan weli gaarin meelihii loo qorsheeyay isagoo oo ku tilmaamay arrintaasi mid ka hor imaanaysa heshiisyadii hore ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in Jubbaland ay horey uga cabatay habka loo maareeyo gaadiid iyo qalab kala duwan oo mashaariic caalami ah lagu maalgeliyay kuwaas oo sheegay in ay si cadaalad ah aan loo gaarsiinin gobolada dalka
sidoo kale waxa uu sheegay in Jubbaland ay horey cabasho uga gudbisay arrintan isla markaana ay la wadaagtay hay'adaha caalamiga sida Bangiga Adduunka iyagoona ku eedeeyay in mashaariicyo horumarineed oo muhiim ah lagu takrifalay. wasiirka waxa uu intaa ku daray in lacag lagu bixiyay gaadiid iyo qalab loogu talagalay kalluumaysatada balse aysan si dhab ah u gaarin meelihii loogu talagalay, taasoo ku tilmaamay nasiib darro iyo hanti qaran oo lagu takrifalayo. dhanka kale Jubbaland ayaa ugu baaqday Bangiga Adduunka in uu si degdeg ah uga jawaabo cabashada isla markaana uu cadeeyo sida loo maareeyay mashaariicda lagu maalgeliyay horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. wasiirka waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan warar sheegaya in qalabka la xiriiriyay ay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah hay'adaha dowladda federaalka inkastoo uusan soo bandhigin cadeymo rasmi ah oo arrintaasi sheegaysa. qodobka ugu dambeeyana booliska waqooyiga Ireland ayaa dib uga noqday war ay markii hore ku sheegeen in nin Soomaali ah oo ku lug lahaa weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Belfast iyadoo cadeeyay in tuhmanaha uu yahay muwaadin u dhashay Suudaan. saraakiisha booliska ayaa sheegay in qaladka ku saabsan aqoonsiga tuhmanaha uu ka dhashay xogihii hordhaca ahaa ee la helay intii uu socday baaritaanka degdega ah ee dhacdada. weerarkan oo dhacay habeenkii Isniinta ayaa sababay dhaawacyo culus oo soo gaaray nin ku jira da'da ah 40-meeyada kaas oo loo qaaday isbitaal si loo daaweeyo dhaawacii soo gaaray. dhacdadan ayaa dadka inta badan waxa ay sheegeen in lagu tuhmayo shakhsi Soomaali balse markii dambe dowladda ayaa beenisay. guud ahaan daawadayaal waa naginta wararka kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabad iyo warsan.